shirka quruxda badan ee ama xafladda aynu ku soo dhaweynayno gudoomiyaha cusub ee dowladda marka koowaad waxaan ku salaamayaa salaamtii islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa xubnaha xukuumadda ka socda oo aanan magacyadooda u koobi karin way ku mahadsanyiin siday nooga soo qayb galeen waxaan u mahad celinayaa xubnaha ururadii sooyo oo ay ugu wen yihiin barwaaqi iyo khadro kale ayaan iyagana si gaar u salaami lahaa waxaan jecelahay in laba qodob soo kooba hadalkayga soonyo waa platform ay leeyihiin dhalinyarada Somaliland oo ay ku tababarteen in ku dhow 5,000 dhalinyaro waxa ay fursad ay isku bartaan u abuurtay baan isleeyahay tirada dhalinyarada Somaliland ugu badan ee istaqaana ee gobollo iyo degmooyin kala duwan ku kala nool soonyo ma aha platform siyaasiya waa platform dhalinyarada horumarkeeda ka shaqeeya horumarka dhalinyarada waxa ka mid ah in ay dhalinyarada Somaliland helaan meel ay aragti iyo fikir isku weydaarsadaan hawlaha u yaala dhalinyarada ama dalada sooyo waxa ka mid ah waa ogtihiin in si siyaasiyan afrabaas loogu hayo oo dhalinyaradeenii lagu kaxaysanayo waxyaabo ay u arkaan inay ku soo bixi karaan tusaale ahaan sooyo waxa laga rabaa in ay samayso platformkii ay dhalinyarada Somaliland ku muujin lahaayeen goonisutaanka Somaliland maalin walba in heritage loo yeesho waxa ceeb ay u tahay jiritaanka Soomaaliya ay ceeb u tahay oo ay dhalinyaradeenii inta kaxayso ku sawirto kuwa kale oo aan isku dabirayn taa waxaan soo jeedinayaa gudoomiyaha cusub waa inay qorshaha inoogu darto halkii ay si qurux badan ugula dooni oo aynu dhalinyarada Somaliland u abuuri lahayn kuwa ku dhiiran aragtidooda waa qodobka labaad sooyo waxaad moodaa qofku markuu koro dicada badan uu yeeshayo saaxiibadooda marmarka qaar way naga yara baqiiqataa laakiin kuma kala tagto sooyo saddexdii goor ee ugu dambaysada tartan adag baa dhex maray laakiin weli way wada joogtaa sooyo waxay calaamad u tahay sida ay Somaliland isuga disho una heshiiso intaasoo goor istishay Somaliland laakiin ma kala tagto sooyo waxay ka abuurtay fikirkii wanaagsanaa ee constructive-ka ahaa ee Somaliland ka dhalatay ayay iyaduna ku abuurtay waxaan ilaahay u rajaynayaa gudoomiyaha cusub in uu hogaankii sidii hore si ka wacan oo energy cusub leh u wado waana wareegto sooyo taariikh baa ka hadlo qof kasta shalay Cabdicasiis Ciise baa joogay taariikh u tagay maanta Cabdicasiis baa jooga taariikh u tagay waa la isweydaarinayaa aad baa mahadsantihiin haddii dadka qaar halkayga degdeg iyo qalad yar arkaan oo ka raali gelinaya waa mahadsantihiin